ku soo dhawow Himilaha High School. Kombiyuutarku waa aalad casri ah oo qof kasta laga maarmaan tahay in ay barato isticmaalkiisa iyo ku shaqayntiisaba. Barashada kombiyuutarka waxay u kala baxdaa qaybo aad u tiro badan, laakiin tan ugu muhiimsan waa inuu qofku yaqaano isticmaalka guud ee kombiyuutarka iyo sida loogu fushado baahiyahaaga aasaasiga. Haddii aad xafiis kaga shaqaynayso iyo haddii aad ku qabsanayso danahaaga gaarka ah, weliba inaad taqaano ku shaqaynta kombiyuutarka iyo isticmaalkiisa guud waa shuruudaha ugu badan ee lagu xiro shaqooyinka la soo bandhigo. Himilaha High School waxa ay ku diyaarisay koors aad ku baranayso aasaas kombiyuutarka bilow ilaa dhammaad. Waxyaabaha aad koors ku baranaysid waxa ka mid ah botoniska kombiyuutarka iyo waxa ay noo qabtaan, sida data kombiyuutarka ku jirta loogu shubto taleefankaaga, iyo weliba window oo lagu bari doono xalinta ciladaha ku yimaada qofka markuu baranayo kombiyuutarka ama aasaas kombiyuutarka. Barnaamijyada wax lagu qorto Microsoft Word, barnaamijyada wax lagu xisaabsho Microsoft Excel, barnaamijyada wax lagu kaydsado Microsoft Access, barnaamijyada wax lagu soo jeediyo Microsoft PowerPoint. Koorska markuu dhimaado waxaa qaadan doontaa shahaado u dhiganta wixii aad soo baratay. Haddaba qaab online ah iyo qaab offline ah labada waad ku heli kartaa. La xiriir telefoonada ciwaanada kaaga muuqda shaashada. Mahadsanidin.